hoggaanka baarista dembiyada CID ayaa wuxuu helay xog ku saabsan in muxuu ahay wax isdabamaris meeshaas ka jiro. waxaa la xiray marka saraakiil wasaaradda maaliyadda customka airportka joogtay iyo saraakiil ayaguna booliiska ahay oo ayaguna ku shaqo lahaa. kiiskaas baaristiisu waxay ka socotaa hoggaanka baarista dembiyada CID ayaa wada muxuu ahaa natiijada ka soo baxdana waxaa loo gudbin doonaa haddii rabbiga awoodda la ogolaado maxkamadda awoodda u leh qaadista kiiskaas. sidaa daraaddeed ayaan rabnay inaad sidaas muxuu ahaa idinla wadaagno. waxaan kaloon marka anigoo munaasabadan ka faa'iidaysanaya rabaa inaan dul maro dalka Soomaaliya muddo badan ayuu wuxuu ku jiray muxuu ahay kala dambeyn la'aan oo soo maray. maalinba maalintii ka dambaysa ayuu soconaysay in Soomaaliya isku tashato dhaqaalaha ka soo baxa ganacsatadeeda iyo muxuu ahay guryaha iyo wax walba dakhliga ka soo gala in lagu maareeyo howlaha dalka. ma suuragelayso mana dhici karayso mana laga aqbali karo qofkii masaakiinta ahaa ee aad ogtihiin hooyayaashiin iyo muxuu ahay yaayada ku gedaysa suuqa bakaaraha iyo wixii lamida oo ganacsi ku jira nooc kasta ha noqdaan miisaan kasta ha lahaadaan inta canshuur bixiyayaasha wixii ay ayagu lahaayeen intay ugu tala galeen in dawladda lagu cover gareeyo howlaha dawladda lagu socodsiiyo qarannimadina dib loogu soo celiyo in qof inta soo qaato lagu aaminay inuu jeebkiisa gashado oo asaga ku munaaficiido hay'aatay ka tahay waddanku shuruucu leeyahay. waxaan leeyahay marka qof kasta ee lagu aaminay sidaasoo kale inuu dakhliga dalka u ilaaliyo ama ha soo qaado ha gudbiyo oo ma bangi ha ku haayo cid loogu dul qaadanaa inaysan jirin. qof kasta waa og yahay sharciga shuruucda dalka ka taalne muxuu ahay qodobka 5aad ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed wuxuu leeyahay qof kasta ee Soomaali ah ama ku nool dalka Soomaaliya lagama aqbalayo shuruucda dalka u taal ma aqaan motivation u noqon mayso. marka inta muxuu ahay hadda baarisu socoto ka hor dhici mayno. haddii kiisku ku cadaadana maxkamadda muxuu ahay la horgeynaa. haddii uu ku cadaan waayana xorriyadiisa loo helayaan laakiin baaristii hadda socota